السلام عليكم جايس ولكن ودن بحر ودن له سو دوادا فضlan hadii aad ku xusubtaa channelkayga subscribe saar hadii aad horay u saartani mahadsanid magacaygu waa wadani bahar halka aad iga daawanaysidna waa Mojis TV mawduuceenu maanta wuxuu ku saabsan yahay sida ilmaha loo tarbiyeeyo hadii aad tahay qof ilmo haysta waxaad u baahan tahay inaad daawato muuqaalkan si aad ilmaha u tarbiyeyso haddaba aan u gudgalo mawduucayga waxaa jira hooyo ama aabo ilmo markii la dhalo lagu barbaariyo dhaqan xumo iyo xishood la'aan iyo edeb daro aadan ogeyn adiga waxa tahay hooyo waxa jeceshahay wiilkaaga ama gabadhaada inay ku noolaato farxad waxa tahay aabo waxa jeceshahay ubadkaaga inay helaan farxad balse waxaad mar walba ilaawdaa ilmaha intay yar yihiin in lagu abaabiyo dhaqanka aad ku dhaqantid adiga waxa jira caalamka ilmo badan ee dhaleen dad kala duwan oo kala haysta dhaqamo kala duwan haddaba waalid walba wuxuu ku fikiraa inuu ku barbaariyo ilmihiisa dhaqanka uu haysto balse haddii aynu ka hadalno Soomaaliya mar walba waxaan ku fikirnaa cunuga markuu weynaado inaan ku barbaarino dhaqankaan haysano balse way adkaa doontaa sida cunuga ku tarbiyeyso hadaa tahay hooyo leeziya ama aab leeziya haddaba maanta muuqaalkan wuxuu anfacayaa qof walba Soomaaliyeed jecel inuu ubadkiisa noqdo qof xishood badan oo ixtiraama dadka waaweyn aan ugu dagaalmo mawduucayga hooyo ama aabo waxaad dhashay wiil ama gabar kaba soo qaad ilmahaaga waxaad tahay hooyo jecel balse ilmahaagu ma ixtiraamaan dadka deriska iyo dadka ku imaanaya oo dhan kama xishoodaan waxyaabaha laga xishoodo mana jeclo inay maqlaan hadalkaaga waliba waxay jecel yihiin inay kula marmaan markaad waaninayso haddaba seed ugu gudbi kartaa caqabadahaas oo dhan waxaad samaynaysaa cunugaagu markuu yar yahay uu gaaro waqtiga hadalka uu fahmayo waxaad samaynaysaa subax walba ama habeen walba inaad soo qabato dhabtaada ku soo fadhiisi adigoo waliba u muujinayo jacayl iyo naxariis kuna akhri kuna shub maskaxdiisa dhagtan uga sheeg in uu jiro Allah subhanahu wa ta'ala ciqaaba cafiya dambiga qofka uu galo balse dambiga loo galo kas inuusan cafin waxaad kala baraysaa inay jiraan naar iyo janno looguna talgalay qofka wanaagsan iyo qofka xun waxaad kala baraysaa wax walba ceeb ah iyo wax walba laga fogaado oo xun waxaad mar walba u sheegaysaa wax walba qaldan markuu u galo adigoon ku taageerinin waxaad kaliyo dhahdaa ceeb Allah ka cabso cunugaagu hadduu intaas ku barbaaro waxaan hubaa inaad ka gaari doontid guul weyn waliba tarbiyadiisa ay noqon doonto tarbiyad dadka oo dhan ay isweydiiyaan waliba ay ku daydaan deriska waana waa taas balse haddii aad mar walba oo cunuga xumaan galo aad u qaadato oo aad garaacdo ogow cunugaas mar walba wuxuu u malaynayaa inaad tahay qof xaasida waliba aad gumaysanaysid ma ogtahay cunugaaga haddii aad ku barbaarisid jacayl iyo wanaag iyo soo dhaweyn iyo Allah ka cabso diinta aad barto si degnaan wax ugu sheegto inuu noqonayo cunug xishooda cabsada qadariya dadka ku imaanayo ee deriska iyo waxa xun oo dhan inuu ka fogaado adigan hadalkaaga wax weyn ka dhiga caasina uusan noqon ilaahay idinkiis waa haddii aad ku tarbiyeysid qaabkan hadda kuu sheegay balse aad ka ilaalisid canaanta badan qaylada badan iyo farakulul waxyaabo aanan macnihii jirka bini'aadanka aan ogolayn taasi waa taas haddii aad jeceshahay qofka weyn da'diisu ay ka sareyso 8 ilaa 10 sano in aad ku soo celisid wadada saxda ah oo waliba aad tarbiyeyso qaabka tarbiya lahayd waxaan ka soo diyaari doonaa video kale waa haddii aad idinka igu taageertaan waliba commentiga aad ka soo codsataan balse haddii aad soo codsubaysaan waxaan dareemayaa in aad ku xajisteen hadalkayga igana raac noqda haddii aad videogan wax ka faa'iiday u shirkirey hal qof xataa soo u gaaro oo asagana wax uga faa'iido haddii aad wax ka faa'iiday oo aad ku xajistane iga raac noqo waa walaakin wadan bahar wadan leh assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.